gabar yar oo nolosheeda dib u heshay kadib markii uu wadnaheedu howlgab ahaa muddo 6 cisho ah. website-ka wararka ee Asia One ayaa sheegay in dhacdadani ay ka dhacday magaalada Shanghai ee dalka Shiinaha kadib markii gabar yar la geeyay isbitaalka dhamaadkii bishii May iyadoo ka sheeganaysa yalaaluga iyo neefsashadu in ay ku adag tahay, laabtana ay xanuun badan ka dareemayso, qandho badanna ay hayso. baaritaanadii lagu sameeyay ayaa muujiyay in xanuun loo dhinto uu ka hayo wadnaha gabadhan yar ayaa la geeyay qaybta gurmadka degdega ah ee isbitaalka waxaana lagu fuliyay qalliin oo waxaa la suray qalab ay ku neefsato oo la yiraahdo extracorporeal membrane oxygenation oo ay ku jirtay muddo 6 maalmood ah oo nolosheeda lagu taageerayay. muddada qalbigeedu wuu howlgabay oo dhaqaatiirtu way ka quusteen in ay ka shaqaysiiyaan. dhaqaatiirtii isbitaalka waxa ay dalbadeen dhaqaatiir si gaar ah ugu takhasusay wadna bedelidda, waxayna xaqiijiyeen in badbaadada gabadhan uu xaalad kaliya noqon karo, waana in loo helo wadna qof uu ku tabarucay. nasiib wanaag, dhaqaatiirtii waxay heleen wadna uu qof ku tabarucay oo ilmahan yar munaasab ku ah oo muddo 3 saacadood gudahood isbitaalka lagu gaarsiiyay. kadib canugtii yareed waxaa lagu fuliyay qalliin guuleystay oo qaatay muddo 2 saacadood ah. gabadhan yar ayaa hadda xaaladeedu soo hagaagaysa, waa sida uu sheegay website-ka Asia One. xaaladeeduna hadda way xasiloon tahay. cabdikariin cali aadan